munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna kala saxiixday heshiis iskaashi oo u dhaxeeya macadka dowladda hoose ee Muqdisho iyo dugsiga maareynta iyo maamulka dawliga ah ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar, mas'uuliyiin ka socotay macadka dowladda hoose iyo dugsiga maareynta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Xasan Cumar Mahad Alle ayaa si qoto dheer uga sheekeeyay hadafka dheer ee laga leeyahay heshiiskan. kulliyadan labadan kulliyadood oo hadda midda jaamacadda iyo middan la mataanowda ee gobolka programka ay wadaan waxa waaye in la kobciyo waxqabadka si khidmadaha iyo adeega dowlad goboleedku uu sameeyo oo shacabka Soomaaliyeed u sameeyo si ay u noqoto mid hufan oo wax ku ool ah. labadan macahad ee hadda iskaashanaya waxay xaqiijinayaan in maamul hufan toosan wax ku ool ah oo ummadda mataqaanaa wax u qabta oo adkeeya salka dowladda federaalka salkeedu wuxuu adkaanaa markii dowlad goboleedyada ay ku fadhido u adkaado. dowlad goboleedyada leecleecaysa dowlad federaal ma xoogaysanayso mana adkaanayso. ugu dambeyntii xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Xiray Axmed Rooble oo soo xiray munaasabada ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, wuxuuna tilmaamay in ka maamul gobol ahaan ay ka go'an tahay tayeenta iyo horumarinta aqoonta shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar. waxa farxad noo ah ka maamul gobol Banaadir ahaan iskaashigan maantay bilowga ah ee u dhaxeeya macadka dowladda hoose iyo qaybta maamulka maareynta dawliga ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. dabcan waa iskaashi bilow cusub laba institution oo mid walba macna gaar ah u leh meesha uu ku yaalo. haddii ay ahaa lahayd in la soo saaro dad aqoon u leh maamulka dawliga ah ee kala heerka ah. dabcan anaga ka gobol ahaan macadka hadda oo halka sano jirsaday waxba hore ayuu tallaabo u qaaday asigoo sanadii waxoogaa jira. haddii uu maanta jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed qaybteedii maamulka iyo maareynta dawliga uu la midoobay ama wada shaqayn la bilaabay, waxay noo tahay farxad gaar ah oo ah in shaqaalihii maamulka gobolka Banaadir oo maaragtay 3,000 iyo wax la jira lagu tilmaamay inta badan inay helaan kuwooda u baahan aqoonta dhinaca ama fahanka dawladnimo inay fahmaan oo maamul in laga caawiyo in iskaashi labadii maaragtay jaamacaddii ummadda oo maaragtay meeshii cilmigii uu yiilay ay iskaashi la sameeyaan waa maaragtay waa wax aad u fiican. Professor Mahad Alle oo ah madaxa jaamacaddan ama gudoomiyaha jaamacadda oo wax badan u soo joogo nin professor ah uu na garab taagan yahay. waxaan isleeyahay haddii sidoo iskaashiga uu yahay ama heshiiska uu qorayo laga wada dhabeeyo inaan heli doono shaqaale tayo leh mustaqbalka dhow oo maaragtay laga dareemi doono qaybaha kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir. macadka dowladda hoose ee Xamar oo 18 bil laga joogo aasaaskiisa ayaa ku talaabsaday horumar la taaban karo. Jamaal Cabdinaasir, warbaahinta codka caasimadda.